بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كسر دواد عشر كي سقالات كتاب كي سفينها عشر كأني هو روحان أقصى شاكيني أركان الصلاة وحان سيدو كلا صوفا فاهني قيب كمد أركان الصلاة سيدا النيدي iyo takbiiratul ixraamka ama xirashadii hadda waxaan ka sheekay doonaa faatixadii faslun fasalkani wuxuu kala saarayaa wixii soo socday iyo wax hadda aan gelayno shuruudul faatixati faatixada shuruudeedu 10 wey 10 shardi leedahay mid kasta ay kamid ah ay muhiim tahay at-tartiibu faatixadii ina kala tartiibisid wey faatixadii ina kala tartiibisid weeye oo waxa weeye sidaas ilaahay u soo dejiyey ina u akhrisidoo ay iskugu xigto ujeedku waa saas inaad kala hormarin wey wal muwaalaatu iyo xiriirin faatixada ay isla xiriirisid marka akhrinaysid ee aad joogjoogsan wa muraacaatu xuruufiha faatixada xuruufteeda inaad ilaalisid wey oo sida aad ugu dhawaaqaysid xaraf kasta inaad saxdid wey waa muhim maanta taas aad iyo aada dhibaato waxa uga jirtaa dad fara badan oo waxaa jira faatixadii aan sixi karin dhawaqeediina aan sixi karin qaybo ka mid a oo dad weliba waaweyn oo 60 jiro 50 jiro aa arkaysaa haddana haddii laga sixi tago isla weynaanaya oo leh anigu intaasoo sanaan soo tukanaya adoo jirinaan tukanaya qof jaanis u haysta ama qiil u heli kara inuu qaldo salaadii ma jiro haddaa marka ilaahay ka cabsanaysid oo waxa weeye aad salaad sax rabtid inaad tukatid iska hubi haddii aad faatixada baratay oo si saxa macallin a uga baratay ee aad taqan waa taqana haddii kale iga hubiya dheh xataa ilmahaaga kuwa waalidka u tahay kuwa ayay waalidka usii tahay iga hubiya dheh dad waaweyn waxaa arkaysa aan faatixadooda kow joogin marka xuruufta faatixada xaraf kasta sida uu ugu dhawaaqayo waa inuu makhrajkii iyo meesha ka soo baxay qofku ilaaliya wa muraacaatu tashdiidaatiha faatixada shidadkeeda inuu ilaaliyo wey shidadka ayadana faatixadu aad ay u muhiim tahay haddaa shidkii ka tegtid faatixada oo xarfihii shidna mid ka mid a haddaa ka tegtid macnihiiyaa qaybo ka mida isbedeli kara wa anlaa yaskuta ruuxu waa inuusan aamusin saktatan aamusid tawiilatan dheer walaa qasiiratan mid gaaban oo yaqsidu uu ugu tala galay bihaa aamuskaas gaaban qadca alqiraa'ati akhriskii faatixada inuu jaro ugu tala galay oo faatixadii marka akhrinaysid horta inaad saa u soo wadid aad tiraahdid iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin inta tiraahdid aad iska aamustid cabaar kabacdi a ihdina siraatal mustaqiim aa bilowda lama ogola waa inaad aadan hakan hadday dheer tahay marka waa eber hadday gaaban tahay ee aad ugu tala gashay inaad goydid akhriskii horena ayana waa eber macnaha eber macnaheed maxaan ka wadnaa waa inaad soo bilowdaa salaaddii hadda kaa buri mayda haddaadan ka socon adoo saa sameeyey waa inaad soo bilowdid oo isku xirtid faatixada waa yahay wa qiraa'atu kulli aayaatiha faatixada aayadaheedoo dhan ruuxu inuu akriyo wey aayadaha faatixadoo dhan inuu si dhammaystiran ruuxu u akriyo wey waa yahay 7 aayadood wa minhaa waxaa ka mid ah aayadaha faatixada albasmalatu bisinkii ka mid ah bisinkii ka mid ah annaga madhabkeenu shaaficiyo weeye madhabka shaaficiyadu wuxuu qabaa bisinku inuu faatixada ka mid yahay haddii aad akhrisid faatixada kor u akhrisidna kor u akhrinaysid hoos haddaa u akhrisidna hoos u akhrinaysid waxaa jira madaahibta kaleoo islaamka qaybo ka mid a oo aan bisinka faatixada ku darayn qaybi maba akhriyaanba qaybina hoosay u akhriyaan maalikiyad oo kale ma akhriyaan xanafiyadii oo kalena hoosay u akhriyaan marka haddaad tahay shaafici bisinka akhri adoon madaahibta kaleoo islaamka wax ka sheegin caayin bidcaysiin gaalaysiin haddaad tahay madaahibta kalena ee aad taqaanidoo ku dhaqantid oo baratid oo raacsan tahayna sida madhabkaagu yahay u dhaqan
adigoon shaaficiyadii gaalaysiin bidcaysiin oo dhihin maxay bisinka u akrinayaan. sidaas weeye xaqu. ma ahan qof kastaahay qofka kale inuu sanka ka geliyo ama ku bidcaysiiyo ama ku gaalaysiiyo. laakiin maanta waxaa jira dhibaatada jirtahay dad oo aan midnaba ahayn oo madhabba aan haysan, haddana saas iskugu dhibayo ummaddii qolo kasta wareerinaya. taasaa u daran. qofka hadduusan madhabba haysan, asagaanba meel haysan, afarta madaahib oo islaamka midna haduus haysa asagaa haysan, yuusan marka dadka wareerinoo qasinoo eedayn hadduusan isagu xaq rabin. marka waxaa intaas dheer dadkii muslimiinta ahaa oo maalan gaar ahaan dadka qurbaha joogaah, madaahibtii dadkii culummada ahaa madaahibta saxda ahaa haystay waa la tukanaynaa. marba hadduu qofku madhab leeyahay, kii bisinka akrinayo madhabka bisinka akriya qabana waa la tukanaynaa. kii aan maaragtay madaahibta kale ee aan bisinka akrin ahaana waa la tukanaynaa. anagu madaahibta dadka qurbaha jooga islaamku ma qabo in oo islaamka la kala furfuro, gaar ahaan dadka oo bisinka siraysanaya madaahibta siraysanaya oo bisinka akrinaya, taas shakiba kama jiro in lala tukanayo. kuwa kalena haddii ay caddahay qofku inuu ka tegey una madhab saxa haysto, aimo waaweyna shaaficiyada madhabkooda qaba, qofku haddii uu madhab ictiqaad ulimaam in la fiirinayo. marka anagoo kuwaas raacayna qof kasta oo ahlu madhaba waxa weye waa la tukanayna hadduu madhabkiisa si saxa uu u raaco. laakiin yaan la isgaalaysin. adigu wixii aad aaminsan taho madhabkii saxood haysatid raac, adoon cid kalena wax ka sheegin. wacadamul laxni qalad in la waayo wey, laxnigii almukhili dhimayey bilmacnaa faatixada macnaheeda dhimayey. laxniga macnaha faatixada wax u dhimayaahi horta laxni iyo qalad oo dhan inaad faatixada ku akrisid lama ogola. laakiin waxaa jira qalad oo faatixadiiba eber ka dhigaya macnaheedii, iyo qalad aan faatixadii macnihii qaldayn. oo maalanba hadda iyaaka nacbudu weeye sida saxda ah. haddii qofka uu yidhah laakiin iyaaka nacbidu waa qalad, faatixa qalad wey, laakiin salaaddii kuma burayso. laakiin qalad ay tahay waajib inuu iska saxa wey. haddii ka waran uu la yimaado qalad macnihiiba bedelaya, oo waxa weye waxaa tiri ancamta calayhim meeshay ka ahayd ilaahu a adigu u nicmaysay, kuwii a u nicmaysay wadadooda ilaahay lala hadlaya soo maa. haddaad tiraha ancamtu aan u nicmeeyey anigu, ama ancamti gabaryaha a u nicmaysid, taada la hoos dhiga carabiga gabara lagula hadlaa. marka taad haddaa godido adigu aad iska hadlaysid iyo haddaa hoos dhigtay labadaba macnihiyaa bedelmaya. salaadaasna eber weeba eber weye salaadaas, marka waxba kama jiraan. marka qalad faatixada macnaheeda dhimaya waa inuusan ruuxu la imaan. wa an takuuna faatixadii waa inay tahay xaalata alqiyaami istaag xaalad ah, asagoo qofku taagan waa inuu akriyaa. filfardi salaadu hadday tahay farad, salaadu faradkii salaaddii waajibkeed hadday tahay waa inuu istaag ku akriyaa faatixadii. meelaha ugu halista badan maxaa ka mid a qofku markuu soo istaagayo, maalan ba ragcad uu ka soo istaagaya, markuu soo istaagaya hadduu bilaabo faatixadii oo uu sii bilaabo bismi llahi raxmaan raxiim asagoo sii socda, si fiican u istaagin, taas khatar weye. laakiin midda ugu khatarta badan oo markasta dhacda waxa weeye oo joogtada ah, qofaa wuxuu samaynayaa imaamkii maalanba ka hor foorarsaday ama asagaaba degdegsan, markaasuu qayb ka mida dadka waxay leeyihin waladaliin ay sii leeyihin. oo macnaha waladaliin markuu leeyahay waaba sii foorarsanaya. marka faatixa haddaad foorarka markaa gashay kabacdi aad waladaliin sii akrinaysid, faatixadaadii istaag kuma wada dhicin. marka faatixadaadii mar haddaysa istaag ku wada dhicin, haddaadan soo laaban oo aadan istaaggii ku dhamaystirin, salaadaadii waa burti. haddaadan u soo laaban ama ragcadaas ku darin, salaadaas waa burti. marka faatixadu istaag waa inay ku wada dhacda. ha iska ilaaliyan dadka ayagoo sii foorarsanaya waladaliin leh. qofku istaagga waa inuu ku yidhahda kabacdi uu foorarsada. wa an yusmica ruuxu waa inuu maqashiyaa faatixadii nafsahu naftiisa. wa an yusmica ruuxu waa inuu maqashiyaa nafsahu naftiisa alqiraa'ata akriska. oo faatixadii waa inuu asagu maqlayaa. ka waran haddaadaba maqlaynba faatixadii oo qalbiga aad ka akrinaysid, faatixadaas maada akrin, salaaduna kaama ansaxayso. wa anlaa yatakhallalahaa waa inuusan kala dhexgelin dikrun dikri
ajnabiyun ee ajnabi ah oo faatixadii adkaar kale oo ajnabihi waa inaysa soo kala dhex gelin wax kale waa inaysa soo kala dhex gelin laakiin waxaa kaliyoo la ogolaya maalanba markii aa maraysid tusaale faatixada dhexdeeda haddii imaamkii uu ku hakaday maalanba qur-aankii uu akrinaya hadduu imaamku aqoon waayo hakaday inta u saxdid aad faatixadii meeshii kasii wadi kartaa laakiin wax kale waa inaad aysa kaa dhex gelin faatixadii waxaa ugu khatarta badan waxay ka mid tahay dhibaatada jirtaa haddii imaamku qur-aanka akhrinayo waxaa la rabaa imaamku haddii ay wax ka istaagaan qur-aanka inaad sugtid imaamku intuu raadinayo laakiin imaamku maanta hal mar hadduu hakado masaajidka dhana isla gurdamayaba asagoo wixiiba raadi lahaa markaasaa imaamkii shaki kusii dhacaya marka waa la sugaa imaamka inaad sugtid way jaanisidid haddii aad ku soo boodid adigana ku maqli mahayo dadka dhanna maqli mahayo shakina waa kusii dhacay inu wax dhan aqoon dhici karta marka imaamku maadaama mutaradidan inta uu raadinayo waa la aamusaa markuu ka istaagood ogaatay inuu aqoon waayey loo sheega haddaad taqaano haddaad aqoonna waa laga aamusaa dadka qayb ka mid a ayagaaba sii luminaya imaamka inta meel kale la aadaan maahan meeshan ku tijaabi faatixadii intaasa marka uga soo baxnay hadda shidadkeediiyaan baranayna faslun fasalkaani wuxuu ka waramayaa shidadka faatixada tashdiidat lfaatixati faatixada shidadkeedu 14 waa 14 bismi illaahi shidka ku jiraahi fowqa laami laamta korkeedu ahaaday oo bismi illaah allah waa ka laamka dul saaran marka bismi illaahi hadhihina shidka bismi illaah waa inaad tiraa arraxmaani shidka ku jiraahi fowqa raa'i ra'da korkeedu ahaaday arrax waa inaad tiraa lakin maxaa la diida arraxmaani haddaa iska tiraa faatixadaada eber wey arraxiimi shidkeedu fowqa raa'i ra'da korkeedu ahaada ayana alxamdu lilaah shidkeedu shidka ku jiraahi fowqa laamiljalaalati laamuljalaalada yacni allah ama lilaahi lafdigaas weye laamkeedu saaran yahi alxamdu lilaah alxamdu lilah iska dhihin rabbi alcaalamiina shidkeeduna fowqa albaa'i ba'da korkeedu waa rabbi waa ka saaran arraxmaani shidkeedu fowqa raa'i ra'da korkeedu ahaada waa tii horo kale arraxiimi shidkeeduna fowqa raa'i ra'da korkeedu ahaaday arraxmaani araxiim waa inaad israacsidid weye haddii arraxmaani arraxiimi aad tiraahdid salaadu kaama burayso laakiin ma fiicna dadka qayba saa u akhriya salaadii laakiin kaama burayso inaad isku qabatid weye maaliki yowmi ddiin shidkeedu fowqa daali daalkaas oo addiin uu saaran yahay iyaaka nacbudu shidkeedu fowqa alyaai ya-da korkeeda ayuu ahaaday iyaaka waa ka saaran wa iyaaka nastaciinu shidkeeduna fowqa alyaai ya-da korkeedu ahaaday wa iyaaka waa ka saaran ihdina asiraata almustaqiim shidkeeduna fowqa asaadi asiraata waa kaa saaran saadka korkiisu saaran yahay siraata aladiina shidkeedu fowqa laami laamka korkiisa ayuu ahaaday ancamta calayhim gayri اlmaqduubi calayhim wala adaliin shidadka saaran intaasna aayaddaas ku jira fowqa daadi daadka wala daa iyo daadka korkiisu ahaaday iyo walaami laamka alliin wala daliin waa inaad tira haddaad tira wala daaliin shidkii daadkana waa ka tagtay laamkana waa ka tagtay haddaa ka tagtidna salaada kaa buraysa marka shid haddaa ka tagtid waa inaad hubisaho ku celisaa midda kale shakiguna yuusa kugu badanoo dadka qayb ka mida shakiga inta ku bata hubisay isku leeyihiin aysa faatixadaba akhri karin shaydaanku marka hore cibaadadu kuu diidaya hadduu cibaadada kaa reebi waayo cibaadada lafteeda kuu dhexgelaya markaasuu shaki maanta dadaa maanta o dhan salaada xiro karinba allah suu maanta o dhan u leeyahay waxa laga yahay jamaacadiiba inay dhammaato waswaasku waa khatar wey dadaa maanta o dhan weesadii 24 saa ku celcelinaya wejiga kaliya ma marta isleh marka taas khatar wey qofka marka dambe shakiga wuxuu keenaa inuu diinta xataa uu ka waswaas geliyo diinta ka saaro dadaa waxay gaaraan dadka inay salaami waayeen shaki oo wax kastaba inay daahir ahayn aamina marka lagama yeelo xataa waxay culimmadu yidhahdeen sida kutubta ku qoran
haddii aad gaartid inaad salaadii xiro weydo shakiga kugu bato oo uu niyadii iyo waxa kaa shaki geliyo dhowr jeera adoo leh maada xiran la socdaa samee allahu akbar dheh hore u soco maada xirantiisa ha ka yeelin marka shaydaanku waa kaa quusanaya laakiin haddaa u hogaansatid maalinka jeer hore 2 jeer xiruu ku leeyahay hubi maalinkaas 2 jeer markaa xirantid maalinka kale 3 jeer xiro maalinka kale 4 jeer xiro 5 jeer xiro ilaa salaada jamaacada dhan ku dhaafto adoo salaadii la taagan ama faatixadii xaraf ka mida ku shakinaya hubi oo ku dhawaaq leh ama weesadii marka shakigu haddii uu kugu bato khatar wey shakiga yar min aliimaani ka mid qofku inuusan waxba ka shakin ma fiicna laakiin shakigu hadduu batana khatar wey faslun fasalkaani wuxuu ka waramayaa 4 meelood oo gacnaha kor in loo qaado ay sunno tahay ee axaadiidta rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku soo aroortay yusannu waxaa la sunneeyaa rafcu lyadayni labada gacnood in kor loo qaado fii 4 mawaadica meelo 4 meelood in gacnaha la taago ayaa sunno ah 1 cinda takbiirati alixraami xirashada takbiirteeda xirashada allahu akbarteeda agteeda markaad xiranaysa salaada allahu akbar aalada 1 2 wa cinda arukuuci iyo markaa foorarsanaysid marka allahu akbar aa leedahay aalada 3 wa cinda alictidaali markii aad soo toosaysidoo soo ekaanaysidoo aad samica allahu liman xamida soo leedahay wa cinda alqiyaami iyo istaagga agtiisa min atashahudi ataxiyaadkii laga soo istaago alawali ee horeeyey marka ataxiyaadka hore ka soo istaagaysidna asagana waxaa la sunneeyaa inaad gacnaha kor usoo qaadid laakiin meel kale lama sunneeyo dad waxaa jira markay sujuudda ku noqonayaan iyo hadba saas yidhaahda lama sunneeyo 4taas meelood gacnaha kor in la qaado loo sunneeya midda kale ataxiyaadka markaa kasoo istaagaysid markaa soo istaagtida gacnaha kor usoo qaadaysaahe adoo fadhiya inta qaadid ma dhigaysid waayahay faslun shuruudu sujuudi sujuudda shuruuddeeda aan hadda baranayna shuruudu sujuudi sujuudda shuruuddeedu 7 wey sujuudda oo wejiga dhulka la dhigayahay 7 shardii leeda iska fiiri in sujuuddaadu sax tahay in kale saa ogaatid 1 an yasjuda ruuxu inuu sujuudo weeye calaa 7 acdaa'in xibno 7 ah korkooda inuu ku sujuuda nabigeena muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam umirtu an asjuda calaa 7 acdum 7 xibnood inaan ku sujuudo alla i faray 7dii way xadiid ku soo arooray 1 maya 7dii xibnood waa soo socotaa hadda macnaha 7daas waa calaa 7 acdaa'in 7 xibnood inuu ku sujuudo qofku nabigaa saas sheegay calayhi salaatu wasalaam waana 7da qaybta soo socotaan ku tiri doona ee hadda shuruudiyan tirinayna shardiga koowaad waxa weeye 7 xibnood inuu ka sujuudo 7dana qaybta soo socoto khaatimadan ku tirinayna shardiga labaad wa an takuuna jabhatuhu wejidiisu waa inay tahay makshuufatan mid bannaan wejidu waa inay bannaan tahay oo hadda madhabkeena shaaficiyada macnaha weji horta maxaa leeyahay meeshaas oo foolka intaas sinan oo yarta oo intaas sinan oo geesaha leh aa weji leeyahay markii la joogo sujuudda intaas marka inay bannaan tahay waxba ku aadanayn haddii nabar uusa kaaga oolino maalan faashadii ay saareen intaas waa inay bannaan tahay qaybta dhulka aad dhigaysid waa inay bannaan tahay sidaa darteed waa haddii koofidu ay soo gasho imaamyada qayb ka mid waxaa arkayda indhaha baarkooda koofidiyo ku timid haddii koofida inta soo kaxayo aan halkan ku keeno ee aan dadkiina raba inaan tukiyo salaadii eber wey marka waa inaan koofida uu imaamku iska hubiyaa qofka dadka tukinaya qofka kalena waa inuu iska hubiyaa sidoo kale gabadhii markay salaada tukanayso madhabkeena shaaficiya ayadoo indha shareeran ma tukan karto yacni oo indha shareerka waxaan ka wadaa qaybtaas foolka ayadoo u daboolan yahay hadduu rabtaba afkan waxa ugu xiraadeene laakiin intaas ayadoo ay daboolan tahay ama xijaabkii caadiga ah inta soo dhowaada uu indhaha korkooda yimid ma tukan karto waa in wejiga inta ah la banneeya wejiga inta ah waa in la banneeya jabhada intaas yartaa laga wadaa ee wejigoo dhan maaha gabadha marka intaasna inay hubiso inay bannaan tahay weeye tinteedana inaysa soo baxsanayn laftigeeda inay hubiso weye qofkii koofisitayna inuu hubiyo weye intaas uu dhulka dhigayo inay bannaan tahay haddii markaas aysan jirin wax daruura oo maalan qofkii nabara uga yaala waxbaa lagu dhejiyay dhib male taas wataxaamulu ruuxu inuu ku riixa weye bira'si madaxiisa uu ku cusleeyo
oo markii aad sujuudid wejiga dhulka aad dhigtid inta taabsid hala soo cararin wejiga dhulka dhig saar culayska ha dareemo haddii maalan ba meeshaas gacanta hoos laga geli lahaa waa inay dareemi lahayd in wax soo galeen xoog ugu riix laguma dhihin lakin adigu isi sii daabis laakiin inta taabsidid hala soo laaban dadka qayb waxa laga inta saa u taabsiyo waxa weeye inuu la soo laabto dadka qayb ka midana sunnadii nebiga iyo qur-aankii si xun u fahmeenoo markay maqleen siimaahum fii wujuuhihim min athari sujuud yacni calaamaadkooda wejiga oga yaalaahi waa sujuudda raadkeeda ay waxay moodeen in wejiga la hoolo inay markaa sujuudda wejiga dhulka inta ku qabtaana roogga ku heegayaan taas faham qaldanoo diinta qofka uu si xun u fahmo wey wejiga haar ka dhigay wejiga in la fool xumeeya lama ogola calaamada la sheegayaahina waa iftiin iyo nuur ka soo baxaya maxaa yeele nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy ina ummatii yudcawna yowma alqiyaamati guran muxajaliina min athaari alwuduu ummadayda maalinka qiyaama waa loo yeerayaa ayagoo yacni xibnihii gacnihii iyo wejigii ay ifayaan weysada raadkeeda weysadu nabaramiya qofka u yeeshaa waa maya waa iftiin iyo nuur sujuuddana qofka sujuudda badiya wejigiisa iftiimayo nuuraya waa nuur ee maahan hadhow wejigu cagaf ku noqday inaad hadhow qiyaamada imaanaysid taas marka waa faham qaldan weeye qofka hadduu sidiisa caadiga u sujuudo wejigu haaraysa dhib ma leh laakiin haddaa ku xoqdidoo sujuud badi ha lagu yidhaahdo ma ahan taas sax maaha wacadamulhuwiyi ruuxu waa inuusan usoo foorarsan oo marka hore usoo hooban ligayri sujuudi waxaan ahayn sujuudda waxaan ahayn waa inuusan usoo hooban maalan ba qofka waa taagnaa faatixadii u dhamaystay salaadii isagoo taaganoo weli foorarsan qof jug siiye markaasuu hore usoo foorarsaday markaasuu yidhi awalba waa rukuuci laheede iska rukuuc oo foorsalaha sii foorso lama raba taas marka hore soo tegidaadii ma ahayn sujuud darteed foorarsi dartiis sujuuddii oo kale sidoo kale adoo fadhiyo haddii qof dhabarka jug kaa siiyo ee aad tiraahdid sujuudda sii aad ma anfacayso waayahay marka waa cadamulhuwiyi sujuudda iyo rukuucdii kulliga isla mid waa inaan qofka usoo foorarsan wax aan ligayrihi sujuud waxaan ahayn waa inuusan usoo hooban casharka waqtigiisa naga dhammaaday dhowr qodoboona waa noo hartay inaan faahfaahina ay muhim tahay casharkeena damaan ka bilaabi doonaa kusii faahfaahi doonaa wabilahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu